بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنتي wanaagsan walaalayaal meel kasto aad daafaha adduunka ka joogtaan alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxay ahayd sabti waxa soo gelaysaa axad insha Allah taala sidii aan ballan qaaday waxa aan soo gelinayaa halkan barnaamijkii daaweynta ahaa ee qofku insha Allah taala uu keligii naftiisa daaweynayay inagoo hagayna oo tilmaamo siin doona insha Allah taala barnaamijkan hadii ilaahay ku waafajiyo oo aad ka mid noqoto dadka ka qayb galaya ilaahay idinkiis waxaad kaga caafimaadi doontaa xanuun kasta oo ruuxiya oo aad ka cabanayso muddadu doonaha ku soo hayo insha Allah taala waad ka takhalusi doontaa waxaad ka raysan doontaa insha Allah taala inaad tiraahdo qof ila tali iyo tala bixinaad qof bini aadam oo daba fadhiisato waad ka raysan doontaa waxaad ka guuleysan doontaa shayaadiinta ibliiska iyo bahdiisa ee wixii la shaqaysta iyo saaxirinta insha Allah taala Allah subhanahu wa ta'ala waxaad arki doontaa manfaacada adkaarta aad iyo dhikriga aad yani wado Allahumma salli ala Muhammad saas awgeed walaalayaal barnaamijkan aan doonayna in la fuliyaa waa barnaamij yani mug weyn marka waxa ilaahay waafajiyay subhanahu wa ta'ala inaan sameeyo horta hordhac oo walaalaha bal ay tababartaan marka hore tababar ay qaataan muddo 7 ilaa 10 maalmood ah marka waxaan ka bilaabi doonaa barnaamijkan oo hirgeli doona axadda marka qofku uu si fiican u dhageysto ee uu fahmo waa uu qoran doona qodobada kadibna qodobadaas u dabaqi doona insha Allah taala waxaan la doonayaa markaad walaal go'aansato inaad ka qayb gasho barnaamijkan inuu sir ku ahaado oo adiga oo kaliya aad ogaato xataa qof family-ga kamid ah u sheegin is daweynayso no don't tell anyone cidna ha la wadaagin arintaadaasi si lilaahi iskaga wado oo khaas ku ah ilaahi subhanahu wa ta'ala tala saaro kaliya WhatsApp aan halkan hoose ku soo dhigi doonaa WhatsApp kaas aniga waxaad ii soo dhigi doontaa si gaar ah igu soo diraysaa waxaan marka admiga barnaamijka yani go'aansanaad ka qayb gasho kaliya waan ka qayb galayaa ii soo qor kadibna maalintii dikriyada aan kugu diro marka aad samayso waxa leedahay maalinta koowaad waan fuliyay haddana maalinta labaad waan fuliyay maalinta saddexaad waan fuliyay maalinta afraad waan fuliyay qaabkaas aad igu soo qoraysaa ana arki doono oo marka ku tig ku saari doono insha Allah taala ama sax ama calaamad inaan arkay ku saari doono insha Allah taala waana kula soconaya marka hadii aan aragno qiyaasto inaad barnaamijkaas hordhaca ah aad ku guuleysatay barnaamijka rasmiga ah ayaad ka qayb gali doontaa insha Allah taala hadii aad aragtay inaad wagash ku tahay ku fashilmayso isla tababarkaas aad ku celceshan doontaa kadibna anigoo la soo xiriir doontaa oo aniguna ku soo jawaabi doona marka aad si rasmiya aad 7 maalmood ee imkaan ku siinayo aad si xiriir amalka u samayso eed ku guuleysato ayaad leedahay ku guuleysato 7 maalmood oo waxaan ka arkayaa taxanahaaga Allahumma salli ala Muhammad kadibna barnaamijka weyn ayaad u galaysaa mid labaad walaalayaal hordhacan waxaan u sameeynaynaa dadkii isku tamar ma aha isku aqoonna ma aha saas awgeed ayaan doonaa walaalo horta bal inay isla wada jaan qaadi karaan oo meel ay ka wada bilaabi karaan aynu ka bilowno insha Allah taala saas walaalayaal ilaahi waafajiyo subhanahu wa taala waxaan ilaahi subhanahu wa taala ka rajaynayaa inuu guusha aynu doonayno ee aynu ilaahi dartii u soo gudbinayno wallahi inaynan maal ku doonayn wallahi inaynan magac ku doonayn wallahi inaynan xataa mahadsan ku doonayn laakiin liwajhi Allah ayaan u soo gudbinaynaa insha Allah taala walaalayaal markaas waxaan ilaahi idinka baryaynaa idin fudaydiyo barnaamijkan waxa aad hirgelinaysaa oo inoo bilaabmaya maalinta Isniinta ee soo socota caawa oo xad soo gelisan soo geliyay caawa ilaa bari walaalaha ha gaadho una sheer garay walaalaha muslimiinta ee doonaya naftooda inay yani cilaajiyaan ay ka gudbaan mashaakilaadka adduunka haysta kadibna ay ilaahi subhanahu wa ta'ala si toos ugu xidhmaan walaalayaal waxaanu ka bilaabaynaa marka barnaamijkeenan maalintii waxa laga doonayaa 300 oo jeer oo kaliya oo istighfaar ah 300 oo kaliya waliba 300 waad kala qaybinaysaa 100 gelinka hore ah 100 gelinka dambe ah iyo 100 habeenkii ah xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ka soo araray wuxuu tilmaamayaa istighfaarta 70 xadiiska qalnuhu wuxuu leeyahay 100 jeer marka waxa loo baahan yahay sirtu ma ahna 40 kun 50 kun akhrido ma aha sirtu laakiin sirtu waa
qalbigaagu ma soo jeeda adoo qaafila hadaad 100 kun oo jeer istighfaarsato waxa aad uga midha badan adoo qalbigaagu u soo jeedo oo baraarugsan inaad yani tiro kooban oo joogto ah aad istighfaarsato marka walaalayaal istighfaarta gelinka hore 100 ayaad ku bilaabay insha Allah ta'ala walibana siiqa kasta oo istighfaar ah oo aad garanayso waxa kugu fudud astaghfirullah wa atuubu ilayh astaghfirullah wa atuubu ilayh waxaad oran kartaa hadaad tuka dheer doonayso astaghfirullahil azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atuubu ilayh hadaad mid ka sii dheer doonayso astaghfirullahil azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atuubu ilayh adada khalqihi wa rida nafsihi wa sinata arshihi wa midad kalimati hadaad doonayso mid ka sii dheer waxaad qaadanaysaa sayyidul istighfar سيد الاستغفار بقى دونتا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت marka istighfaarta mid kasta oo ku fudud oo Allah ku waafajiyo qaadata waa isku mid gelinka hore 100 gelinka dambana 100 habeenkiina intaana saxan ka hor hurdada 100 ayaad sameynaysaa marka istighfaarta dhamayso waxaad ku xigsiin doontaa dhikriga la ilaha illa Allah haddii aad furaaq haysato waad fadhiisan marka dhikriyayso la ilaha illa Allah muddada maalintii waxaan ka doonayaa maalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad ilaa lixaad maalin kasta waxaan ka doonayaa 2500 oo kaliya inaad tiraahdo la ilaha illa Allah 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 kadib maalinta u dambaysa ee axadda waxaad liblaabad ka dhigi doontaa 5 baad ka dhigi doontaa taa macnaheedu waxay tahay 7 maalmood ee aynu qabsanay labadii maalmood waa isku 5,000 labadii kalena waa 5,000 halkaas waa 10,000 labadii kalena waa 5,000 waa 15,000 maalinta u dambaysana waa 5,000 halkaas macnaheedu wax weeyaan 20,000 ayaad xidhaysaa oo tawxiidka la ilaha illa Allah ah oo aynu doonayno inaynu kaga xorowno nafta darajada koowaad ama nafta koowaad ee loo yaqaan nafta xumaanta dadka faraysa nafsul amaratu bisu biidni Ilaahi ta'ala oo aynu doonayno dhikriga 100,000 inaynu insha Allah ta'ala Ilaahi subhanahu wa ta'ala kaga bedelano in naftaas aynu ka gudubno kadibna aynu hore u socono marka dhikriga la ilaha illa Allah waxa aan ka doonayaa nidaamkan maalintii 2,500 oo kaliya 2,500 oo kaliya 6 maalmood ugu horeysa maalinta toddobaadna 5,000 kadib halkaas 20,000 ayaa ku xidhmi doona insha Allah ta'ala sidoo kale walaalayaal maalin kasta saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam kunkii saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam joogtiisa weynoo ahaan doona marka saliga nabigu kaleey salaatu wasalaam dariiq walba waa ka Ilaahay inuu furayo wa amalkeenu ognahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu inaga aqbalayo hadii dhab inaga tahay adeen kaftameynaba sida awgeed kunka saliga nabigu mar walba aasaaskeenu kamid yahay waana joogto insha Allah ta'ala walaalayaal hadda aad ka sii badin karto alxamdulillah rabbil alamin waayahay marka qodobka ugu horeeya walaal waa maxay istighfaarta 300 wili baad u kala qaybsanay 3 waqti tawxiidka oo 2,500 waad qaybsan kartaa isaga laftarkiisa waqtina waad ka dhigan kartaa adoo fadhiyo waad tawxiidka waad akhrin kartaa adoo soconay waad akhrin kartaa adoo jiif waad akhrin karaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaasho walaalayaal kadib saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam kunkaana maalintii wada qaybsan kartaa isaga sidoo kale hadaa doontana hal waqti baad akhrin kartaa insha Allah ta'ala intaas waa qaybta koowaad qaybta labaad walaalayaal waxa laga doonayaa in aad wardigan akhrisato suuradahan quraanka kariimka ee aan ku sheegi doono oo laga doonayo min 100 jeer waxa wanaagsan oo aad u wanaagsan qofku inta aanu seexan inuu akhriyo oo akhristo laakiin haddii aad shaqayso oo aad cudurdaar leedahay waqtigii aad furaaqa leedahay waad akhriyi karaysaa insha Allah ta'ala laakiin waxa muhiim in aad joogtayso suuraduhu waa suurada aan wada garanayno suuratul Fatiha 100 jeer ayaa maalintii laga doonayaa walaal haddaad habeenkii aad akhrisato marka saxan ka fiican haddaad mashquul tahayse waqtigii aad heli karto chance akhri 100 jeer oo suuratul Fatiha ah waxaad ku tufan doontaa biyaha waliba wax biyaha waxa fiican kuwan warshadu ay sifayso ayaa aad u wanaagsan ama biyaha samsadka kii aad heli karayso haddaan heli karin biyihii aad heli karto ku akhriso Ilaahay idinkiisa daawo ayuu Ilaahay kugu siin doonaaye suuratul Fatiha waa 100 jeer suuratul Falaq
قل أعوذ برب الفلق وبقول شير سورة الناس قل أعوذ برب الناس وبقول شير آية الكرسي سيدوك له بقول شير سيدوك له واحد أخرسن دونتا آية الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا آية كواد سورة الفتح بقول شير هي آية الكرسي ولا ليال سيدوك له مركز سورة قرآن كآخرين بقول شير هي آياتها آية كرسي آية الفتح مركز بقول شير أخريسي أنت عم بقول كوش يجي بيها كتفة واحد سوء بستها سليد زيتونتا لتر كأه إيدنا كتفة بيها واد عبيسا شركة جنوات كم صحيسا لكن سليد زيتونتا واحد سمينيسا إن شاء الله تعالى مركز حنيسو أيات ماذا حاجة إلا شركة أوردن أدمرينيسا مركز سوء حاجة دميساتو إتزو ويسيساتو هذا حاستهاي أما الزوج أتهاي مركز حقي زوجك إيه لمانه مركز دماتو إتزو ميرتو ويسيسو اللهم صل على محمد شبكا وظاهرة مركز سليدة زيتون كي قرآن كتكو أخرستي ماذا حق بلو حلقا إنه جعنت الصارة نسنت المهير دقاقة سفي عن ماذا عمري إلا شبكا أوردن ميلنها كتجين إلا دقاها كنتو ذا إلا حبناها ترنك ميله أوردن بتسفي عن مرنسا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى إلا فرح لوجها دحذو ذا أي تسفي عن وجودك سليدة سليد زيتون إن شاء الله تعالى ولا ليال مركز سيحان إنسان dadka habeenkii shaqeeya ee maalintii seexda markii ay seexanayaan bisaaso kala sameeyaan insha Allah ta'ala hadii alla ka dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo siiyay diin fudud oo aan culays iyo adkaysi lahayn oo aan mudnayn in la isku adadkeeyo saas awgeed walaalayaal waxaanu sheegnay maxay qodobka labaad inta boqol kala akhriyo waa suuratul faatiha oo boqol jeer ah suuratul naas qul a'udhu birabbin naas oo boqol jeer ah suuratul falaq qul a'udhu birabbil falaq oo boqol jeer ah aayatul kursi oo boqol jeer ah آية الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا وبقول شيء بقول كاتشر مخذ أخرسته معنى والبا سيدتيتو تنا كتف بيها ألعب سنة كتف تهليش سيد بيها نوعبتو سيدنا مركات سيحانيسو أي شركة جسفي عن مرنسو وجودو جسا أنت ولا هذا اللي فهمتين صورة ده صوص صعدة هدي التقاننا واد أخريسا هدي أنا ذقون واد دقيسنيسا صورة ده محاكمة ده سورة ياسين هدي أتقانو إنترنت سيحان هالمر أخري كدب سورة الصاد أي كوحكتا هالمر أخري سورة الصافات هالمر أخري سورة النور هالمر أخري هي سورة أنفال هي سورة الزلزلة إذا سلسلة الأرض سلسالها مركا لحظة سورة ضد وسورة ياسين سورة الصاد سورة الصافات سورة النور سورة أنفال هي إذا سلسلة أنت أنا سيحان كهر أخري هدي أتقانو هدي أنا ذقونين يوتيوب كوكر لسه دقيسو إذا داونلود قريسته دقيسو أنت أنا تسيحن كهر وايه أنت أصلا مركز سميسان تضبط المعلومات تبرك كتشرتو بلو إن قيام الليل كهبينك إله سبحانه وتعالى صلاة الليل كأتوكتو صلاة الليل كنا وقت يسوقرون كبلاوان يا الشها وحي كدم بيه صلاة الليل قد بلاوان كرتا يعني يدي الشها وقت كتوكتان ساعة كدب بلاوان كرتا إن شاء الله تعالى وقت إله كوافتشيو haddii aad hurdada ka soo kici kartana aad ay u fiican tahay oo habeenkii 8 saac 9 saac ama labada habeenimo saddexda habeenimo ilaa afarta habeenimo salaad subax inta ka horeysa ay aad u sii qiimo badan tahay laakiin hadaa tahay dadka daalan ee ama kici kareynin inta aanad seexan ka hor waa tukan kartaa intii ilaahay subhanahu wa ta'ala ka waafajiyo يعني صلاة الليل كسب أنت إلهي كوافتش إلهي كاشو إن شاء الله تعالى ولا ليال بإذن الله تعالى مركا ولا ليال تضبط مع الموت إن شاء الله تعالى يكبل عبني سنينتا سلاسة أربعة خميسة جمعها سبت ذا إيا أحد صوصعتا أحدا عاوة أي صوصعتا أحد إذا كلا إنتاسي أي دكريقا أرقبسانا إسا إسلا مركب برنامج كنو كسو قاعدو واتساب كهوس عن كوسيي هدي أدكو أنصتين أتكقيب كشو برنامج كاس إسئلة جنت أو إلهي سبحانه وتعالى أن كرجينيو إنه فتح كوسيو أو أد بلا آدم هي مخلوق بكم مارمي دونت إن شاء الله تعالى waxaad ii soo qortaa kaliya diyaar baan ahay kadibna bilaabo maalinta koowaad markaad hawsha dhamayso ii soo qor maalinta koowaad waan fuliyay maalinta labaad waan fuliyay maalinta saddexaad waan fuliyay ilaa 7 maalmood aynu gaadhayno marka la hadaan dulmaro istighfaartu waa 300 maalintii sidan hore soo sheegay la ilaaha illa allah wa 2500 muddo 6 maalmood ah maalinta u dambeysana waa 5000 guud ahaan waxa laga doonay 20000 oo tawxiidka la ilaaha illa allah ah kadib bad gudbi doonta wareega dambe
اللهم صل على محمد سورة الله خرسانية بيها إيه سليد زيتون تلقوا خرسانية مالك استجوبت لو دوني وحويان سورة الفاتحة وبقول شيرة سورة الناس قل أعوذ برب الناس وبقول شيرة سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق أو بقول شيرة آية الكرسي أو بقول شيرة آية الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا أو بقول شيرة بقول كاتشيرنا بيها نكتفه weliba mooyee saxada fiican biyaha warshaduhu ay sifeeyaan hadda heli karto haddaan haysan biyaha heli karto iyo saliid saytuunta oo literal soo iibsanayso ku tufayso biyaha tahliisha ah ee tufatay maalintii habeenkii wad cabi kartaa saliid saytuuntana markii aad seexanayso haddaad habeenkii seexato haddaad habeenkii shaqayso maalintii seexatana maalintii markii aad seexanayso hurdadaada rasmiga ayaad madax ilaa iyo mujo meel kasta jirka kamid aad si fiican u marinaysaa insha Allah ta'ala inta ka bacdi walaalayaal waxa qodobka kale uu yahay انت آنت سيحن كهر سورة أذخرييسو وسورة ياسين سورة الصاد سورة الصافات سورة النور سورة أنفال هي سورة الزلزلة إذا سلسلة الأرض سلسالها سورة داسي أيضا هالمرة أخريسا هدي أتقانو هدي أرد قونين داونلود قريسو أو دقيسو إلهينا سبحانه وتعالى وحن كرتشيني نقوليو قيام الليل كانوا وينو بلاوينا ولا ليال وهدي هروت كنجرتين الحمد لله الله كوسيادي الله كبركيو haddaan hore u tukan jirina imika bilow waxaad samayn kartaa haddaad kici karayso way fiican tahay haddaanad kici karinna salaada cishaa markaad tukato saacada kadib waad tukan kartaa salaatu leelka insha allahu tacaala intii ilaahay kaa karsiiyo walaalayaal ma doonayo inaan barnaamijkeedu ka adkeeyo waxaan doonayaa inaad si simbala oo fudud aad barnaamijka ula qabsataan oo fahantaan intaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idigu guuleeyo marxaladda labaad baan u gudbi doonaa biidni illaahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa khayr dhammaantii إلهي وحنا كم قلنا شر دمانتي إلهي وحنا قبرية قف كستو مسلمة قف كستو ولا الله أهل خير كأه أهل الذكر كأه إلهي سهل شيء إن إلهي مراد كيس الدنيا كيس أخرب أسهله إن إلهي أرمه ودون يكفكر الله سبحانه وتعالى وسورتقليه إن قال ميسان حسنات إلهي لو قدره ولا ليال أين يسكت دعينا ولا الله مسلم تأني دعينا برنامجكم ولا ليال لا تنتني mar labaad baan ku celinayaa waa inuu sirku ahaado cidna aanay kula ogaan ilaa qoyskaagu inaad ilaajinayso laakiin dantaada gaarka wado insha Allah ta'ala WhatsApp-ka gaarkaan wada igala soo xiriiraysa insha Allah ta'ala intaanu barnaamijka ku kulmayna walaalayaal waxaan kaga tagayaa astawdiukumullah alladhi la tudii'u wadaa'i'ahu fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد